bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada tusmada wararka qodobada maanta aad u maqli doontaana waxaa ka mid a laftagareen oo daaqada siyaasadeed ka saaray brofesor ibi oo taageer weyn u ahaa farmaajo madaxweynaha puntland oo brofesor jurulle ka reebay kursigii u sharaxnaa ee golaha shacabka soomaaliya go-aan nuucee u wanaagsan inay soomaaliya ka qaadato yukrain iyo ruushka ahlu sunna oo soo bandhigtay sarkaal ka soo goostay dowladda soomaaliya intaas waxaa ku dhan qodobadii ugu door korana daawade waxaan kaa codsanayna inaad saarto subscribe like share comment inaad ka bixiso waad ku mahadsantahay qodobka ugu horreey waxuu yahay laftagareen oo daaqada siyaasadeed ka saaray brofesor ibi oo taageer weyn u ahaa farmaajo mid ka mid ah xubnihii baarlamaanka tobanaad ee shantii sano lasoo dhaafay dhalla-aanta u taageerayey madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhowaan ku dhawaaqay in uu difaacan waayey kursiga uu ku fadhiyey tan iyo sanadkii 2010 ibi wuxuu hambalyo horraaca u diray jaamac takal cabaas oo ah nin dhalinyaro ah kaas oo la filayo in khamiista 3 bisha 3 sanadka 2022 lagu doorto magaalada baydhabo kadib markii koonfur galbeed si cad ibi u sheegay in uusan ahayn kursi baarlamaan iyo shahaado tartan midna kursigan waxaa sidoo kale si weyn u raadiyey xasan cabdi axmed xasey iyo aadan suldaan kana soo jeeda bakool hase yeeshee kala doorashada madaxweynaha maamulkaas ayaa meesha ka saartay musharaxiintan waxaana ugu dambeyn kursigan loo xiray jaamac taqal waxaa sharaf iyo qadarin ii ah in aniga walaalkay xildhibaan jaamac taqal cabaas aan isku hambalyaynay mas-uuliyaddana waa meerto waxaana bixiya allaah awoodda sare leh dhammaantiin waan idin wada cafiyey idina walaalayaal dhammaantiin isoo cafiya insha allah ayuu yidhi brofesor ibi oo ku yidhi qoraal uu soo saaray ibi waxaa lagu xasuustaa qoraalkii uu ku dulqoray muuqaal la duubay dhammaadkii disembar sanadkii 2021 kaas oo farmaajo oo inta jidadka oo dhanna loo xiray keliya gaadiidka wakhtiga marayay jidka maka almukarama wuxuuna ibi socdaalkaas ku tilmaamay mid lagu qori doono buugaagta sooyaalka soomaaliya ujeedka qoraalkaas ayuu hogaamiyaha xisbiga wadajira cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ku macneeyey ihaano iyo isdullayn lagu beer la xabsanayo farmaajo iyo laftagareen si kursi looga helo wuxuuna xilligaas brofesor ibi xasuusiyey in xukunka la bixiyo ee kursiga uu doonto beesha leh madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen ayaa meesha ka saaray shakhsiyaad muddo ku soo jiray siyaasadda soomaaliya kuwaas oo ay ka qayb yihiin brofesor maxamed cumar dalaxa brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo brofesor cabdiraxmaan aadan ibraahim ibi madaxweynaha puntland oo brofesor jurulle ka reebay kursigii u sharaxnaa ee golaha shacabka soomaaliya wararka laga helayo magaalada boosaaso ayaa sheegaya in cabdirasaaq cismaan jurulle oo ahaa siyaasi rugcada ah laga reebay tartanka kursiga baarlamaanka federaalka ee u sharaxnaa senator jurulle oo ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka tobanaad xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii kacaanka iyo dowladdii xilligii burburka kadib ayaa ka mid ah siyaasiyiinta u dhowaa madaxweynaha puntland oo la filayay in uu ku soo baxo kursiga xildhibaan laakiin waxaa ugu dambeyn laga reebay doorashada gudoomiye ku-xigeenkii guddiga doorashooyinka sida puntland caynaanshe yuusuf xuseen ayaa ku dhawaaqay inuu xilka iska casilay isagoo la sheegay in loo xiray kursiga beeshiisa ee toddobaadkan lagu dooran doono magaalada boosaaso kaasi oo hore loogu saadaalinayay in uu ku soo bixi doono senator cabdirasaaq cusmaan xasan jurulle oo horey u waayay kursigii aqalka sare senator cabdirasaaq cusmaan jurulle oo ah siyaasiga ugu aqoonta badan ugu waxtarka roon uguna ilbaxsan sida ay qabaan dad badan uguna xiriirka badan ayaa maanta laga reebay xubnaha golaha shacabka ee gobolka bari ee ku matalaya soomaaliya waana maalin elduuf iyo matalaad xumo weyn dhacday ayuu yidhi wasiirkii hore arrimaha gudaha soomaaliya cabdi faarax juxa oo arrintan ka hadlay go-aan nuucee u wanaagsan inay soomaaliya ka qaadato yukrain iyo ruushka ayaa duulaan dhan weliba ah waxa uu ku qaaday yukrain weerarkan uu doonayo inuu guud ahaan kula wareego dalkaasi ayaa lagu sheegay mid ugu cuslaa tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka dalalka maraykanka iyo yurub ayaa ka soo horjeestay gardarrada ruushka uu ku burburinayo dal kale oo madax bannaan iyaga oo cunaqabatayn saaray moscow
waxaana la wadaa in arrintan la geeyo jimciyadda qaramada midoobay iyo dunida oo dhan ay meel ugu soo wada jeesato. haddaba muxuu noqon karaa mowqifka Soomaaliya haddii arrinta Ruushka iyo Ukraine la keeno jimciyadda qaramada midoobay? waxaana hor dhignay aqoon-yahano ku takhasusay sharciga xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda. Professor Xasan Sheekh Cali oo PhD-da ka haysta xiriirka caalamiga oo aan wax ka weydiinay mowqifka ay tahay in Soomaaliya ka qaadato haddii arrinta Ruushka iyo Ukraine la keeno jimciyadda UN-ka, waxa uu leeyahay Soomaaliya waa inay ceebaysaa Moscow, isagoo intaa raaciyay in Soomaaliya waa inay si adag u diido duulaanka qaawan ee Ruushka ku soo qaaday dalka Ukraine, sababtoo ah dalka Ruushka wuxuu si cad u jebiyey dastuurka qaramada midoobay qodobkiisa chapter 1 article 4 oo u qoran dalalka xubnaha ka ah waa inay ka reebtoomaan xiriirkooda caalamiga inay isku adeegsadaan agajuglayn adeegsi awood ama adeegsidaaba, taasi oo khatar gelinaysa badqabka dunida, khatarna ku ah madax bannaanida dal oo awood kale ka hor imaanaysa hadafka loo aasaasay qaramada midoobay. abukaati cabdiwaaxid oo isna ah falaqeeya xagga siyaasadda iyo arrimaha mowqifka Soomaaliya ayaa qaadan karta aan wax ka weydiinay, waxa uu ku jawaabay xaaladda aan ku sugannahay noo saamixmayso in sida reer galbeedka raba iyo si ka duwan aynu caddayno caloosheenna ayay ku jiraan, codkeennu dhanna waxtar uma laha. yuusuf cabdi faarax oo arrintan aan wax ka weydiinay waxa uu ku jawaabay arrinta ay isku haystaan Ruushka iyo Ukraine waa mid amni. markii uu Ruushka la heshiiyey Kuuba oo gantaalada ridada dheer la dhigay xadka Kuuba, Maraykanka waa uu qayliyey, caalamka oo dhan ayuu u helayay, gantaaladii meesha waa laga soo qaaday. kiiskan waa mid kaas oo kale. Ruushka waxa uu diidan yahay in Ukraine ay ku biirto NATO, ugu arko xadkaas oo gantaalo yaanaan marka amnigiisa ayuu farageliyey. mar uu ka hadlay yuusuf cabdi faarax mowqifka laga filan karo Soomaaliya, waxa uu yidhi arrinta labadaas dal waxaa la geeyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Ruushka waxa uu soo saaray cod qayaxan, halka Hindiya iyo Imaaraadka ka aamuseen. marka haddii kiiska la keeno jimciyadda qaramada midoobay waa inay Soomaaliya isaga aamusto ugu yaraan oo ay qaadato mowqif dhexdhexaad ah, waayo dhibaatadaas waa mid taalla dalal waaweyn. taageerada wax maslaxad ah nooguma jirto male haddii aan Ruushka taageerno, caalamka reer galbeedka oo dhan ayaa nagu xumaanayo. waa falcelin xun. waxaan nahay ciidamo ajnabi ay joogaan oo taageero ka hela reer galbeedka, sabab aan Ukraine u taageerno male, ayuu yidhi. ahlu sunna oo soo bandhigtay sargaal ka soo goostay dowladda Soomaaliya. ahlu sunna wal jameeca ee ku sugan deegaanka Bohol ee gobolka Galgaduud ayaa maanta soo bandhigay sargaal ka soo goostay dowladda Soomaaliya. ninka ay soo bandhigeen ahlu sunna ayaa watay gaari nooca loo yaqaano Brosikiska iyo 2 qori nooca BM-ka ah ama dabajeexa. weli laamaha amniga Galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya la sheegay in uu ka soo goostay kama aysan hadlin sargaalkaasi isku soo dhibay ahlu sunna. deegaanka Bohol ee duleedka Dhuusamareeb dhaca waxaa fariisan ku leh ahlu sunna oo maalmihii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo abaabul dagaal ay ka wadeen, kuna doonayeen in ay dib u qabsadaan Guriceel oo bishii Oktoobar ee sanadkii hore laga saaray. Dhuusamareeb waa caasimadda Galmudug. waxaa shalay lagu soo dhaweeyey Sayid Cabdi Cali Xaashi oo 2 xidigle ahlu sunna ku biiray xilligii dagaalka Guriceel, balse garwaaqsaday in uu Galmudug dib ugu soo laabto, iyadoo uu ahaa sargaalkaasi taliyaha ciidanka garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb. intaas waxaa ku dhan warkii aad kala socoteen tusmada wararka daawaday. haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka ee tusmada wararka, waxaan kaa codsanaynaa inaad saarto subscribe, like, share, comment inaad ka bixiso, waad ku mahadsan tahay. bismillahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. kulanti wanaagsan daawadayaal, meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada tusmada wararka. qodobada maanta aad u maqli doontaana waxaa ka mid ah laftagareen oo daaqada siyaasadeed ka saaray Professor Ibi oo taageer weyn u ahaa Farmaajo. madaxweynaha Puntland oo Professor Jurille ka reebay kursigii u sharaxnaa ee golaha shacabka Soomaaliya. go'aan nuucee u wanaagsan inay Soomaaliya ka qaadato Ukraine iyo Ruushka. ahlu sunna oo soo bandhigtay sargaal ka soo goostay dowladda Soomaaliya. intaas waxaa ku dhan qodobadii ugu door korona daawade. waxaan kaa codsanaynaa inaad saarto subscribe, like, share, comment inaad ka bixiso, waad ku mahadsan tahay. qodobka ugu horreeya wuxuu yahay laftagareen oo daaqada siyaasadeed ka saaray Professor Ibi oo taageer weyn u ahaa Farmaajo.
mid ka mid ah xubnihii baarlamaanka tobanaad ee shantii sano lasoo dhaafay dhala-aanta u taageerayey madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhowaan ku dhawaaqay in uu difaacan waayey kursiga uu ku fadhiyey tan iyo sanadkii 2001 ibi wuxuu hambalyo horraaca u diray jaamac takal cabaas oo ah nin dhalinyaro ah kaas oo la filayo in khamiista 3 bisha 3 sanadka 2022 lagu doorto magaalada baydhabo kadib markii koonfur galbeed si cad ibi u sheegay in uusan ahayn kursi baarlamaan iyo shahaado tartan midna. kursigan waxaa sidoo kale si weyn u raadiyey xasan cabdi axmed xasey iyo aadan suldaan kana soo jeeda bakool. hase yeeshee kala doorashada madaxweynaha maamulkaas ayaa meesha ka saartay musharaxiintan waxaana ugu dambeyn kursigan loo xiray jaamac taqal. waxaa sharafa iyo qadarin ii ah in aniga walaalkay xildhibaan jaamac taqal cabaas aan isku hambalyaynay. mas-uuliyaddana waa meerto waxaana bixiya allaah awoodda sare leh. dhammaantiin waan idin wada cafiyey idina walaalayaal dhammaantiin isoo cafiya insha allah ayuu yidhi brofesor ibi oo ku yidhi qoraal uu soo saaray. ibi waxaa lagu xasuustaa qoraalkii uu ku dulqoray muuqaal la duubay dhammaadkii December sanadkii 2021 kaas oo farmaajo oo inta jidadka oo dhanna loo xiray keliya gaadiidka wakhtiga marayay jidka Maka al-Mukarrama. wuxuuna ibi socdaalkaas ku tilmaamay mid lagu qori doono buugaagta sooyaalka Soomaaliya. ujeedka qoraalkaas ayuu hogaamiyaha xisbiga wadajira cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ku macneeyey ihaano iyo isduleyn lagu beer la xabsanayo farmaajo iyo laftigaran si kursi looga helo. wuxuuna xilligaas brofesor ibi xasuusiyey in xukunka la bixiyo ee kursiga uu doonto beesha leh. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftigaran ayaa meesha ka saaray shakhsiyaad muddo ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya kuwaas oo ay ka qayb yihiin brofesor maxamed cumar dalaxa, brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo brofesor cabdiraxmaan aadan ibraahim ibi. madaxweynaha Puntland oo brofesor Jurille ka reebay kursigii u sharaxnaa ee golaha shacabka Soomaaliya. wararka laga helayo magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in Cabdirasaaq Cismaan Jurille oo ahaa siyaasi rugcada ah laga reebay tartanka kursiga baarlamaanka federaalka ee u sharaxnaa. senator Jurille oo ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka tobnaad xilal kala duwan ka soo qabtay dowladii kacaanka iyo dowladii xilligii burburka kadib ayaa ka mid ah siyaasiyiinta u dhawaa madaxweynaha Puntland oo la filayay in uu ku soo baxo kursi xildhibaan laakiin waxa ugu dambeyn laga reebay doorashada. gudoomiye ku-xigeenkii guddiga doorashooyinka sida Puntland Caynaashe Yuusuf Xuseen ayaa ku dhawaaqay inuu xilka iska casilay isagoo la sheegay in loo xiray kursiga beeshiisa ee toddobaadkan lagu dooran doono magaalada Boosaaso kaasi oo hore lagu saadaalinayay in uu ku soo bixi doono senator Cabdirasaaq Cusmaan Xasan Jurille oo horey u waayay kursigii aqalka sare. senator Cabdirasaaq Cusmaan Jurille oo ah siyaasiga ugu aqoonta badan ugu waxtarka roon uguna ilbaxsan sida ay qabaan dad badan uguna xiriirka badan ayaa maanta laga reebay xubnaha golaha shacabka ee gobolka bari ee ku matalaya Soomaaliya. waana maalin eldoof iyo matalaad xumo weyn dhacday ayuu yidhi wasiirkii hore arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa oo arrintan ka hadlay. go'aan nuuce u wanaagsan inay Soomaaliya ka qaadato Ukraine iyo Ruushka ayaa duulaan dhan waliba waxa uu ku qaaday Ukraine. weerarkan uu doonayo inuu guud ahaan kula wareego dalkaasi ayaa lagu sheegay mid ugu cuslaa tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. dalalka Mareykanka iyo Yurub ayaa ka soo horjeestay gardarrada Ruushka uu ku burburinayo dal kale oo madax bannaan iyaga oo cunaqabatayn saaray Moscow. waxaana la wadaa in arrintan la geeyo Jimciyadda Qaramada Midoobay iyo dunida oo dhan ay meel ugu soo wada jeesato. haddaba muxuu noqon karaa mowqifka Soomaaliya haddii arrinta Ruushka iyo Ukraine la keeno Jimciyadda Qaramada Midoobay? waxaana hor dhignay aqoonyahanno ku takhasusay sharciga xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda. brofesor xasan sheekh cali oo PhD-da ka haysta xiriirka caalamiga oo aan wax ka weydiinay mowqifka ay tahay in Soomaaliya ka qaadato haddii arrinta Ruushka iyo Ukraine la keeno Jimciyadda UN-ka waxa uu leeyahay Soomaaliya waa inay ceebaysaa Moscow isagoo intaa raaciyay in Soomaaliya waa inay si adag u diido duulaanka qaawan ee Ruushka ku soo qaaday dalka Ukraine sababtoo ah dalka Ruushka wuxuu si cad u jebiyey
dastuurka qaramada midoobay qodobkiisa chapter 1 article 4 oo u qoran dalalka xubnaha ka ah waa inay ka reebtoomaan xiriirkooda caalamiga inay isku adeegsadaan agajuglayn adeegsi awood ama adeegsidaaba taasi oo khatar gelinaysa badqabka dunida khatarna ku ah madaxbannaanida dal oo awood kale ka hor imaanaysa hadafka loo aasaasay qaramada midoobay abukaati cabdiwaaxid oo isna ah falaqeeya xagga siyaasadda iyo arrimaha mowqifka soomaaliya ayaa qaadan karta aan wax ka weydiinay waxa uu ku jawaabay xaaladda aan ku sugannahay noo saamixmayso in sida reer galbeedka rabaa iyo si ka duwan aynu caddayno caloosheenna ayay ku jiraan codkeennu dhanna waxtar uma laha yuusuf cabdi faarax oo arrintan aan wax ka weydiinay waxa uu ku jawaabay arrinta ay isku haystaan ruushka yukrain waa mid amni markii uu ruushka la heshiiyey kuuba oo gantaalada ridada dheer la dhigay xadka kuuba maraykanka waa uu qayliyey caalamka oo dhan ayuu u heelayey gantaaladii meesha waa laga soo qaaday kiiskan waa mid kaas oo kale ruushka waxa uu diidan yahay in yukrain ay ku biirto neeto ugu arko xadkaas oo gantaalo yaanaan marka amnigiisa ayuu farageliyey mar uu ka hadlay yuusuf cabdi faarax mowqifka laga filan karo soomaaliya waxa uu yidhi arrinta labadaas dal waxaa la geeyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ruushka waxa uu soo saaray cod qayaxan halka hindiya iyo imaaraadka ka aamuseen marka haddii kiiska la keeno jimciyadda qaramada midoobay waa inay soomaaliya isaga aamusto ugu yaraan oo ay qaadato mowqif dhexdhexaad ah waayo dhibaatadaas waa mid taalla dalal waaweyn taageerada wax maslaxad ah nooguma jirto ma leh haddii aan ruushka taageerno caalamka reer galbeedka oo dhan ayaa nagu xumaanayo waa falcelin xun waxaan nahay ciidamo ajnabi ay joogaan oo taageero ka hela reer galbeedka sabab aan yukrain u taageerno male ayuu yidhi ahlu sunna oo soo bandhigtay sarkaal ka soo goostay dowladda soomaaliya ahlu sunna wal jamaaca ee ku sugan deegaanka bohol ee gobolka galgaduud ayaa maanta soo bandhigay sarkaal ka soo goostay dowladda soomaaliya ninka ay soo bandhigeen ahlu sunna ayaa watay gaari nuuca loo yaqaano brosikiska iyo 2 qori nuuca bmka ah ama dabajeexa weli laamaha amniga galmudug iyo kuwa dowladda soomaaliya ee la sheegay inuu ka soo goostay kama aysan hadlin sarkaalkaasi isku soo dhibay ahlu sunna deegaanka bohol ee duleedka dhuusamareeb dhaca waxaa fariisan ku leh ahlu sunna oo maalmii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo abaabul dagaal ay ka wadeen kuna doonayeen in ay dib u qabsadaan guriceel oo bishii oktoobar ee sanadkii hore laga saaray dhuusamareeb waa caasimadda galmudug waxaa shalay lagu soo dhoweeyey sayid cabdi cali xaashi oo 2 xidigle ahlu sunna ku biiray xilligii dagaalka guriceel balse garwaaqsaday in uu galmudug dib ugu soo laabto iyadoo uu ahaa sarkaalkaasi taliyaha ciidanka garoonka diyaaradaha dhuusamareeb intaas waxaa ku dhan warkii aad kala socoteen tusmada wararka daawaday haddii aad ku cusub tahay barta youtube-ka tusmada wararka waxaan kaa codsanaynaa inaad saarto subscribe like share comment inaad ka bixiso waad ku mahadsan tahay bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada tusmada wararka qodobada maanta aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah laftagareen oo daaqada siyaasadeed ka saaray brofesor ibi oo taageer weyn u ahaa farmaajo madaxweynaha puntland oo brofesor jurille ka reebay kursigii u sharaxnaa ee golaha shacabka soomaaliya go-aan noocee u wanaagsan inay soomaaliya ka qaadato yukrain iyo ruushka ahlu sunna oo soo bandhigtay sarkaal ka soo goostay dowladda soomaaliya intaas waxaa ku dhan qodobadii ugu door korana daawade waxaan kaa codsanayna inaad saarto subscribe like share comment inaad ka bixiso waad ku mahadsantahay qodobka ugu horreeya waxuu yahay laftagareen oo daaqada siyaasadeed ka saaray brofesor ibi oo taageer weyn u ahaa farmaajo mid ka mid ah xubnihii baarlamaanka 10aad ee 5 sano lasoo dhaafay dhala'aanta u taageerayey madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhowaan ku dhawaaqay in uu difaacan waayey kursiga uu ku fadhiyey tan iyo sanadkii 2001 ibi wuxuu hambalyo horraaca u diray jaamac takal cabaas oo ah nin dhalinyaro ah kaas oo la filayo in khamiista 3 bisha 3 sanadka 2022 lagu doorto magaalada baydhabo kadib markii koonfur galbeed si cad ibi u sheegay in uusan ahayn kursi baarlamaan iyo shahaado tartan midna
kursigan waxaa sidoo kale si weyn u raadiyey xasan cabdi axmed xasey iyo aadan suldaan kana soo jeeda bakool. hase yeeshee kala doorashada madaxweynaha maamulkaas ayaa meesha ka saartay musharaxiintan, waxaana ugu dambeyn kursigan loo xiray jaamac taqal. waxaa sharaf iyo qadarin ii ah in anigoo walaalkay xildhibaan jaamac taqal cabaas aan isku hambalyaynay. mas-uuliyaddana waa meerto, waxaana bixiya allaah awoodda sare leh. dhammaantiin waan idin wada cafiyey, idina walaalayaal dhammaantiin isoo cafiya insha allah, ayuu yidhi brofesor ibi oo ku yidhi qoraal uu soo saaray. ibi waxaa lagu xasuustaa qoraalkii uu ku dulqoray muuqaal la duubay dhammaadkii December sanadkii 2021 kaas oo farmaajo oo inta jidadka oo dhanna loo xiray keliya gaadiidka wakhtiga marayay jidka Maka al-Mukarrama. wuxuuna ibi socdaalkaas ku tilmaamay mid lagu qori doono buugaagta sooyaalka Soomaaliya. ujeedka qoraalkaas ayuu hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ku macneeyey ihaano iyo isduleyn lagu beer la xabsanayo farmaajo iyo laftigaran si kursi looga helo. wuxuuna xilligaas brofesor ibi xasuusiyey in xukunka la bixiyo ee kursiga uu doonto beesha leh. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftigaran ayaa meesha ka saaray shakhsiyaad muddo ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya, kuwaas oo ay ka qayb yihiin brofesor maxamed cumar dalaxa, brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo brofesor cabdiraxmaan aadan ibraahim ibi. madaxweynaha puntland oo brofesor jurulle ka reebay kursigii u sharaxnaa ee golaha shacabka Soomaaliya. wararka laga helayo magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in Cabdirasaaq Cismaan Jurulle oo ahaa siyaasi rugcada laga reebay tartanka kursiga baarlamaanka federaalka ee u sharaxnaa. senator Jurulle oo ka mid aqalka sare ee baarlamaanka tobnaad xilal kala duwan ka soo qabtay dowladii kacaanka iyo dowladii xilligii burburka kadib, ayaa ka mid siyaasiyiinta u dhawaa madaxweynaha Puntland oo la filayay in uu ku soo baxo kursiga xildhibaan, laakiin waxaa ugu dambeyn laga reebay doorashada. gudoomiye ku-xigeenkii guddiga doorashooyinka sida Puntland Caynaashe Yuusuf Xuseen ayaa ku dhawaaqay in xilka iska casilay, isagoo la sheegay in loo xiray kursiga beeshiisa ee toddobaadkan lagu dooran doono magaalada Boosaaso, kaasi oo hore loogu saadaalinayay in uu ku soo bixi doono senator Cabdirasaaq Cusmaan Xasan Jurulle oo horey u waayay kursigii aqalka sare. senator Cabdirasaaq Cusmaan Jurulle oo ah siyaasiga ugu aqoonta badan, ugu waxtarka roon, uguna ilbaxsan sida ay qabaan dad badan, uguna xiriirka badan, ayaa maanta laga reebay xubnaha golaha shacabka ee gobolka bari ee ku matalaya Soomaaliya. waana maalin elduuf iyo matalaad xumo weyn dhacday, ayuu yidhi wasiirkii hore arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa oo arrintan ka hadlay. go-aan noocee u wanaagsan inay Soomaaliya ka qaadato Ukraine iyo Ruushka ayaa duulaan dhan weliba waxa uu ku qaaday Ukraine. weerarkan uu doonayo inuu guud ahaan kula wareego dalkaasi ayaa lagu sheegay mid ugu cuslaa tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. dalalka Maraykanka iyo Yurub ayaa ka soo horjeestay gardarrada Ruushka uu ku burburinayo dal kale oo madax bannaan, iyaga oo cunaqabatayn saaray Moscow. waxaana la wadaa in arrintan la geeyo Jimciyadda Qaramada Midoobay iyo dunida oo dhan ay meel ugu soo wada jeesato. haddaba muxuu noqon karaa mowqifka Soomaaliya haddii arrinta Ruushka iyo Ukraine la keeno Jimciyadda Qaramada Midoobay? waxaana hor dhignay aqoonyahanno ku takhasusay sharciga xiriirka caalamiga iyo diblomaasiyadda. brofesor xasan sheekh cali oo PhD-da ka haysta xiriirka caalamiga oo aan wax ka weydiinay mowqifka ay tahay in Soomaaliya ka qaadato haddii arrinta Ruushka iyo Ukraine la keeno Jimciyadda UN-ka, waxa uu leeyahay Soomaaliya waa inay ceebaysaa Moscow, isagoo intaa raaciyay in Soomaaliya waa inay si adag u diido duulaanka qaawan ee Ruushka ku soo qaaday dalka Ukraine, sababtoo ah dalka Ruushka wuxuu si cad u jebiyey dastuurka Qaramada Midoobay qodobkiisa Chapter 1 Article 4 oo u qoran dalalka xubnaha ka ah waa inay ka reebtoomaan xiriirkooda caalamiga inay isku adeegsadaan agajuglayn, adeegsi awood ama adeegsidaaba, taasi oo khatar gelinaysa badqabka dunida, khatarna ku ah madax bannaanida dal oo awood kale ka hor imaanaysa hadafka loo aasaasay Qaramada Midoobay. abukaati cabdiwaaxid oo isna ah falaqeeya xagga siyaasadda iyo arrimaha mowqifka Soomaaliya ayaa qaadan karta aan wax ka weydiinay, waxa uu ku jawaabay xaaladda aan ku sugannahay noo saamixmayso
in sida reer galbeedka rabaa iyo si ka duwan aynu u caddayno calaashaan caloosheenna ayay ku jiraan codkeennu dhanna waxtar uma laha. yuusuf cabdi faarax oo arrintan aan wax ka weydiinay waxa uu ku jawaabay arrinta ay isku haystaan ruushka iyo ukrein waa mid amni. markii uu ruushka la heshiiyey kuuba oo gantaalada ridada dheer la dhigay xadka kuuba, maraykanka waa uu qayliyey, caalamka oo dhan ayuu u helayey, gantaaladii meesha waa laga soo qaaday. kiiskan waa mid kaas oo kale. ruushka waxa uu diidan yahay in ukrein ay ku biirto neeto, ugu arko xadkaas oo gantaalo yaanaan marka amnigiisa ayuu farageliyey. mar uu ka hadlay yuusuf cabdi faarax mowqifka laga filan karo soomaaliya waxa uu yidhi arrinta labadaas dal waxaa la geeyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. ruushka waxa uu soo saaray cod qayaxan halka hindiya iyo imaaraadka ka aamuseen. marka haddii kiiska la keeno jimciyadda qaramada midoobay waa inay soomaaliya isaga aamusto ugu yaraan oo ay qaadato mowqif dhexdhexaad ah, waayo dhibaatadaas waa mid taalla dalal waaweyn. taageerada wax maslaxad ah nooguma jirto ma leh. haddii aan ruushka taageerno, caalamka reer galbeedka oo dhan ayaa nagu xumaanayo. waa falcelin xun. waxaan nahay ciidamo ajnabi ay joogaan oo taageero ka helaa reer galbeedka. sabab aan ukrein u taageerno male ayuu yidhi. ahlu sunna oo soo bandhigtay sarkaal ka soo goostay dowladda soomaaliya. ahlu sunna wal jamaaca ee ku sugan deegaanka bohol ee gobolka galgaduud ayaa maanta soo bandhigay sarkaal ka soo goostay dowladda soomaaliya. ninka ay soo bandhigeen ahlu sunna ayaa watay gaari nuuca loo yaqaano brosikiska iyo 2 qori nuuca bmka ah ama dabajeexa. weli laamaha amniga galmudug iyo kuwa dowladda soomaaliya ee la sheegay in uu ka soo goostay kama aysan hadlin sarkaalkaasi isku soo dhibay ahlu sunna. deegaanka bohol ee duleedka dhuusamareeb dhaca waxaa fariisan ku leh ahlu sunna oo maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo abaabul dagaal ay ka wadeen, kuna doonayeen in ay dib u qabsadaan guriceel oo bishii oktoobar ee sanadkii hore laga saaray. dhuusamareeb waa caasimadda galmudug. waxaa shalay lagu soo dhoweeyey sayid cabdi cali xaashi oo 2 xidigle ahlu sunna ku biiray xilligii dagaalka guriceel, balse garwaaqsaday in uu galmudug dib ugu soo laabto iyadoo uu ahaa sarkaalkaasi taliyaha ciidanka garoonka diyaaradaha dhuusamareeb. intaas waxaa ku dhan warkii aad kala socoteen tusmada wararka daawade. haddii aad ku cusub tahay barta youtube-ka tusmada wararka waxaan kaa codsanaynaa inaad saarto subscribe, like, share, comment inaad ka bixiso waad ku mahadsan tahay.